Hay akhyaarta soo dhawaada muuqaalkeen maanta wuxuu ku bilaabanayaa helikobtero badan iyo gawaari ciidan oo gaashaaman. Gawaaridan iyo helikobtarkan ayaa waxay ku wareegayeen magaalada qayb ka mid ah, laakiin ciidankii ayaa daadanayo qaarkood waxayna ku soconayaan dhulka. Dhammaantood waxay rabaa inay soo qabtaan kabtanka burcadka aadka u weyn Gabriel, laakiin waxa hogaaminaya ciidankan oo loo soo diray mushinkan Santiago iyo ciidankiisa waxay rabaa inay gacanta ku soo digaan Gabriel Marco Loreya oo ah burcadka magaaladan daroogada soo kala geliyo midkaasoo ugu weyn magaaladan. Intaas ka bacdi waxay ogaanayaan gurigoo joog Gabriel oo ku jiray isla markii gurigii ay waxay ku qabanayaan isku weer isla markiina waxay weerarayaan gurigii isla markii ciidankii Gabriel iyo askartii booliiska iyo militariga isku jira ayaa waxay isku bilaabayaan dagaal. Isla markii waa laga guuleysanayaa ciidanka Gabriel waxaan lagu dhufanayaa hal xabo oo ah 7 marka lagu dhufto hubkaas culus oo 7 ah isla markii waxa meesha ka dhaxayo dib waxaan la qabanayaa dadkii meesha jooga dhamaantood. Dadkii meesha laga soo qabto oo ah burcadda markii la wareysanayay qaarkood waxay sheegayaan inay Gabriel arkin, laakiin ciidanka meesha jooga si kasta uu adkeeyay way sheegi weynayaan ayaka meel loo jir Gabriel. Laakiin qaar ka mid ah ayaa la soo bixinaya banaanka. Marka loo soo bixiyo waxa ku jirta gabar iyo wiil isla lashtay oo ka shaqeynaya meeshan baarka ah. Isla markii gabartii way faganaysaa isla markiina waxa ka daba cararaya Santiago oo ciidanka hogaaminayay. Gabarta aad ayay u dheereysay Santiago-ne gabarta wuu soo qowweynaa waxayna la galaysaa xaafado asiga aqaanin, laakiin Santiago kama harayo. markuu dambayso gacanta ayuu ku soo dhigayaa. Gabartii markuu soo qabto Santiago waxay kala dhiganayaan deal ama qorsho. Santiago gabartan wuxuu og yahay Loreyo oo ah burcadka ugu weyn Latin America inay ka shaqeyso gurigiisa. wuxuuna isla markii leeyahay gabartan hadda ii soo gudbiso xog kasta oo ku saabsan gurigaas iyo qaabka loo gali karo waxaan kuu soo deynayaa walaalka. iyadana waxay ku leedahay waayaha waa kuu soo qabanaya, laakiin waxay u sheegaysaa gurigaas inuu ku yaalo meel duur ah cidna u dhawaa karin ciidan aad u fara badan haysto. laakiin asiga wuxuu sheegayo inuu waxaas u dhanka taqluusayo oo u soo sheego kaliya meel uu joogo information ay siiso. dhiilkii Santiago iyo gabartii waxay ku kala dhigteen sidaas. isla markii Santiago wuxuu isku dayayaa inuu dawladda u sheegin oo asiga oo wato ciidan u qaas ah ciidankaasna ay soo dhacaan Loreyo lacagtoo haysto oo dhan. Santiago isla markii wuxuu isku dayayaa inuu asaasto asiga ciidan u qaas ah oo ka madax banaan dawladda. isla markii maskaxdiisa waxa ku soo dhacayso kabtan hore oo u fadhiistay oo la dhaho Captain William Milaro oo loo yaqaano Tom ayuu isla markii wuxuu tagayaa asigoo ciidan tababar siinayo. laakiin Captain Tom ayaa isla markii ka diidayay inuu dagaalkaas galo. wuxuuna u sheegay asiga inuu dawladda fasax ka soo qaatay iyo in kale, laakiin asiga uu siraya wuxuu leeyahay dawladda ayaa fasax ka soo qaatay. isla markii Captain Tom oo u kaxeynayo gabartiisa iskuul Santiago ayaa wuxuu u sheekeynaa sheekada, laakiin Captain Tom ayaa wuxuu u sheegayo inuu asiga ka dhaafi intay gabarta la socoto. gabartii markay iskor geeyeen ka bacdi waxay sii wateen sheekadooda. Captain Tom ayaa u sheegayo inuu yahay asiga askari hore oo fadhiistay, laakiin wiligiis xitaa una habaysanin Loreyo inuu soo qabto. wuxuuna u sheegay Loreyo inuu haysto ciidan aad u tababaran iyo hub casri ah. laakiin Santiago ayaa wuxuu u sheegayo haddii lacagtaas ay soo qaataan inay dawladdu wax ka sii deynin ayaka. laakiin sheekada hadda ayuu fahmay Captain Tom. wuxuuna fahmay inuu ninkan kasoo fasax qaadan dawladda oo rabo asiga inuu u weeraro si shakhsi ahaan ah, laakiin wuxuu sheegayaa lacagta uu asiga leeyahay percentage-keeda. wuxuuna ku leeyahay waxaa leedahay 25% lacagtaas daa soo wada qaadano. Captain Tom uu aqbalayaa mushinkii, laakiin isla markii waxa ku soo biirayo tiim kale. tiimkan oo dhammaantood ay yihiin dad askar hore ah iyo kuwo iskugu jiro feeryahan. isla habeenkan mid ka mid ah ayaka ayaa wuxuu dheelayay feer, laakiin ciyaarta ayay daawanayeen dhammaantood. waxayna isweydiinayaan qaarkood oo ka mid yahay Captain Tom wuxuu weydiinaya Santiago inay u diyaarsan yihiin baasaboorada ku baxsan lahaayeen haddii lacagtaas ay xadaan ee dalka ugu bixi lahaayeen. laakiin Santiago ayaa u sheegaya wax walba inuu diyaariyo asiga helikobtero lacagta lagu qaadi lahaa iyo wax walba. laakiin Captain Tom iyo tiimkiisa ayaa ka yaabaa ninkan qorshaha uu diyaariyay. Santiago iyo tiimkiisa waxay aasanayaan duurka ama meesha ku yaala gurigii Loreya, waxayna rabaa inay kasoo gudbiyaan ama kasoo qaataan wax information ah. isla markii waxay toombirka ku arkayaan Loreyo xaaskiisa iyo caruurtiisa. waxay ogaanayaan markasta oo axad ah 12 saac oo subaxnimo inay kaniisadda aastaan Loreyo xaaskiisa iyo caruurtiisa ee guriga markaas ay joogaan ciidan bes. Santiago iyo ciidankiisa ayay ku cabsoonayaan. isla markii waxay arkayaan gaarigan ayaa waxay saarnaayeen waxaan aqoonin, waxayna u sii galayaan gaariga gudaha. gurigan duurka ku yaal ayaa wuxuu leeyahay 3 albaab, wuxuuna leeyahay kaamirooyin silig adag iyo waxyaabo fara badan oo guriga lagu ilaaliyo. isla markii gaariga gudaha galay waxaa saarneeyay gabartii oo Santiago la galay dhiilka. gabartan ayaa guriga ka shaqaale, laakiin Tom wuxuu u sheegay Santiago inuu qabtay asiga shaqo aad u wanaagsan. isla markii guriga ee gabarta u soo gasho Gabriel oo ah ninkii ka faktay Santiago iyo ciidankiisa ayaa ka shakinaya gabartan, laakiin iyadoo waxay sii wadanaysaa
shaqadeeda. Santiago iyo tiimkiisa waxay lahaayeen kulan, dhammaantood waxay cabaayeen cabitaan, aad ayayna u faraxsanaayeen dhammaantood, waxayna ka wada fikirayeen qof walba lacagta markuu helo wuxuu ku sameyn lahaa. laakiin waxay isweydiinayaan lacagtan ayaka hadduu booliiska uu qabto inay tahay sharci la'aan. laakiin Santiago ayaa wuxuu sheegayo qaarkood inuu ayaka yihiin booliis, lacagtan markay soo xadaan haddii booliiska qabtana ayna dhib lahayn. laakiin waxay u sheegayaan in booliiska ay ogaan doonin ayakana mushinkooda fuliso doonaan, dalkan iskaga bixi doonaan ayagoo nadiif ah. maalintii ku xigtay waxay kulmayeen Santiago gabartii oo u dirsaday mushinka, waxayna u sheegaysaa wax fara badan ay soo ogaateen. Santiago ayaa wuxuu ku leeyahay waxaan ku sii doonaa 2 milyan, walaalka aan xiranay waa soo deey doonaa haddaa mushinka ugu soo baxday sidaan kugu dirsaday. dhiilkii meeshii ayuu kasii soconayaa. maalintii ku xigtay Santiago iyo asxaabtiisa waxay soo aruursanayaan hubkooda, wayna soo qalab qaadanayaan. qorshahooda soo ahaay waa maalin Axad ah, waxayna rabaan markay caruurta iyo Santiago ay maqan yihiin kaniisada jiraan inay kala tuurtaan hawshooda, ciidanka meesha joogana ay u qubeeyaan. maalintan waxaa da'ayay roob aad u fara badan, waxayna u eeday Santiago iyo tiimkiisa Janis. ciidan qaarkood ayaa banaanka joogin, waxayna gudaha ka galeen roobkii. laakiin waxaa gudaha u gelayo ciidan qayb ka mid ah gudaha. markay u galaan ciidan qayb ka mid ah waa isla markii waxaa bilaabanaya mushinkooda. xariif meeshan taagnaa isla markii asigoo dhan ayay la kacayaan, wayna dilayaan. isla markii raggan waa rag professional ah, waxayna wataan qoryo aan dhawaqooda la maqlaynin qaarkood. isla markii ciidankii meesha joogo dhammaantood ayay ka taqlusayaan. Santiago waa mid asiga wax fahamsanay, isla markii derbiga ayuu jebinayaa, wuxuuna kasoo bixinayaa lacag aad u fara badan. lacagtii dhammaantood waxay ku guranayaan boorsooyinka ay wateen, waxayna leeyihiin lacagtan dhammaanteed ka mid wategayno ee waa wada qaadanayna. isla markii baabuur ay wateen ayay gudaha soo gashanayaan, baabuurkii ayayna ku guranayaan lacagtii. ma rabaa midka kale inuu ka tegiyo lacag meesha uu tegiyo, waxayna leeyihiin lacagtoo dhan ayaa wada qaadanaynaa. laakiin ayaka uma deeqdo lacagta gaariga ay wataan, waxaana waajib ku ah inay lacagta qayb ka mida ay ka tagaan. waxaa ku socday waqti, waxayna ka baqayaan inay kusoo noqdaan Loreya iyo familkiisa. isla markii ay koobaaraya lacagtii ayay isla markii waxay galayaan qolka jiifka ee Loreya. marka qolka jiifka Loreya galaan, isla markii waxaa soo bixi doono Loreya, wuxuuna ku dhuumanayay meel yar oo armaajo u eg. isla markii wuxuu ku bilaabay xabad ay kan iska xabadeynayaan. laakiin mid ka mid oo la dhaho William ayaa isla markii wuxuu ku dhufanaya xabad, wuuna dhaawacmaya. si kastaba asiga waa weli mid nool, laakiin ayaka markay baxayeen waxay dab ku qabanayaan guriga dhammaantiis. dabka wuxuu isku qabsaday isla markii si dhaqsi ah, wayna soo baxayaan, waxayna soo qaadanayaan gawaari ay ka soo aruursadeen lacagta. isla markii guriga wadada laga soo galo waxaa ugu hor imaanayo Loreya familkiisa. Loreyana lama socon maalintan, waxayna kusoo direen guriga. isla markii Santiago waxaa ku sugaysay helicopter u qaado lacagta, asigaana hore u diyaariyay. isla markii helicopterka wuxuu u sheegaysaa lacagtan aad ku fara badan inayna qaadi karin, helicopterkana ay ku naqanayso culays. waxayna u sheegaysaa inayna qaadi karin 250 milyan lacag ah. waxayna u sheegaysaa ugu yaraan waa inay 20 milyan ay ku daadiyaan meelaha keymaha ah, sababtoo ah naftooda ay riski galayso. isla markii waxay isku raacayaan sidii, wayna wada aqbalayaan inay ka sabraan 20 milyan. helicopterka dhanka kale waxaa saarnay gabartii u soo jaajuustay Loreya gurigiisa oo ka shaqaynaysay, waana loo sii daayay walaalkeeda. isla markii meel u dhow magaalada ay rabeen ayay iskaga dejinayaan gabartii jaajuuskeeda iyo walaalkeeda, waxayna siinayaan 3 milyan ka dhigtaan lacag ay ku baashaalaan inta noloshooda ka dhiman. waxayna leeyihiin isma arkin ee habeen wanaagsan. isla markii gabartii ayaa waxay weydiinayso inay ku balameen 2 milyan, laakiin asiga uu dariyay 1 milyan oo dheeri ah. wuxuu leeyahay airport waxaa kugu sugayo qof aa ku balamiyay, qofkaas ayaa waxa siinaysaa 1 milyan. asiga ayaa airport ka gudbinayo kuna geynayo meesha rab. isla markii Santiago uu soo baxaya, wayna ismacsalaameynayaan. diyaaradda waxay socotobo, isla markii wuxuu u sheegayaa ninkii diyaaradda wada ee pilotka ahaa inay lacagta qaarkood ee meesha ka daadiyaan boorsooyinka, haddii kale wuxuu u sheegayaa buurahan dhaadheer in helicopterka ay kor u fuuli karin. isla markii hadalkii ayay maqlayaan, waxayna daadinayaan lacagtii qayb ka mid ah. laakiin helicopterkii ayaa iyadoo laga daadiyay lacag aad u fara badan, weli waxay ka gudboonaysaa buuraha dhexdooda iyo buuro dhaadheer. isla markii helicopterkii wax ku imaanayo burbur, waxayna ku soo dhacaysaa dhulka. isla markii lacagtii waxay ku soo dhacaysaa dad beeraley ah. dadkan ayaa isla markii lacagta waxay gelaysaa hunguri, waxayna soo qaadanayaan hubkooda. isla markiina dadka beeraleyda ahayd odayaal ku jira ayaa waxay sheeganayaan lacagta milkiiladeeda, waxayna leeyihiin lacagtan anaka ayaa iska leh, waxayna ka timid xag Allah, wayna noo soo dhacday anaka ayaan iska leh. isla markii dadkii iyo Santiago waxa dhex marayo buuq aad u fara badan. isla markii Santiago iyo Captain Tom waxay la baxayaan bistooladaha iyo qoryaha,
waxayna isla markii xabadeynayaan odayaashii lacagta sheeganayay. isla markii dadkii tuulada aad ay u xanaaqayaan waxaan laga dilay dad odayaal oo aad ugu weyn agtooda. dadkii xaafadda degnaa oo beeraleyda ah ayaa waxay ka cabsoonayaan Santiago iyo tiimkooda. isla markii waxay u tagayaan oday xaafadda ka ah madax. isla markiina odaygaas ay waxay siinayaan lacag waxayna u sheegayaan inuu ka raali noqdaan eeka. isla markiina waxaa la soo siinayaa dameero ay ku rartaan lacagta waxayna ku soo raranayaan dameerada lacagtaas waxayna u ambaqaadayaan inay u baxaan meeshii ay u socdeen. isla markii kor waxaa ka arkayay wiil aad u da'yar. wiilkan ayaa waxaa ku jiray dad kala dilay aabihiisa wuxuuna rabaa inuu u aaro oo ka takhaluso raggan. Santiago iyo asxaabtiisa waxay galayaan safar keymaha ah waxayna habeen iyo maalin ku sii soconayaan keymaha ayagoo fuulayo buuro aad u dhaadheer. isla markii Santiago iyo asxaabtiisa hal faras oo watay lacag aad u fara badan ayaa waxay ka dhacayso buurta. isla markii waxay ogaanayaan meesha buurta ay ku socdaan inay tahay buur aad u halis badan. isla markiina waxay iska fasaxayaan dameeradii iyo fardihii ay wateen. isla markiina lacagtii waxay ku soo guranayaan xarko waxayna eekan ku fuulaan buurtii xarko. waxaa la gaaray xili habeen ah. habeenkan ayaa waxaa jiray qabow aad u fara badan. lacagtii qayb ka mid ah ayaa waxay ka dhiganayaan dab waxayna shidanayaan lacagtii qayb ka mid ah. subaxii markay soo kacaan qoray ayaa lagu soo ridayaa mana yaqaanaan meel laga soo ridaya. waxaana soo ridaya qof isneebarka aad ugu fiican. isla markii waxay raadinayaan meel laga soo ridayo qorigan waxayna ogaanayaan in buuraha dhexdooda qorigan laga soo ridayo. isla markii waxaa arkaya Captain Tom wuxuuna ku qabanaya qori sneebar cunugii yaraay wuxuuna ka tooganaya madaxa. laakiin isla markii Captain Tom ma u qornin inuu sii noolaado. wiilkii yaraay wiil la socday ayaa isla markii wuxuu saarnay buurta ka korayso Captain Tom. isla markii Captain Tom ay wuxuu fuji doonaa madaxa wiilkii yaraayna asigana waxa dili doonaan Santiago iyo asxaabtiisa. isla markii Captain Tom meeshii ayuu ku dhimanaya. isla markii asxaabtiisa ay ku ooynayaan Captain Tom laakiin asxaabta qayb ka mid ah ayaa niijawayso waxayna weydiinayaan Santiago goortii dhimanayaan eekane. laakiin Santiago ay wuxuu sheegayo inaan had u noqon karin gadaal horane ay u socdaan ee tahda bes. wuxuu u sheegayaa lacagtan inay ujeedadooda aheeday inay lacagtan qaataan. isla markii tiimkii soo haray iyo Santiago wuxuu ku lugeynayay meel aad barafley ah. Santiago ayaa wuxuu dirayo mid eeg ka mid ah doontaalo magaalada banaankeeda meel bad ah. isla markii ninkan wuu baxaya wuxuuna soo ogaanaya ciidan aad u fara badan inuu ku sugayo magaalada Eika oo la og yahay inay buuraha ku dhuumaaleysanayaan. wuxuuna u sheegaya ciidanka magaalada ku sugooyo inay yihiin ciidan dhalinyaro ah oo burcad ah inay yihiin ciidan la shaqay jiray Loreya. meesha waa la isla tashanaya. markii la isla tashteen ka bacdi waxaa soo bixayso boqolka boorso ee wadaan inay magaalada la geli karin waxayna ku tashanayaan buuraha dhexdooda inay dhigtaan lacagta ay ugu soo noqdaan maalin kale. waxayna leeyihiin waxaa qaadanayna lacag yar. lacagta badankood waxay ku tuurayaan laba buur dhexdooda. isla markii waxay ku dhuumaaleysanayaan magaalada waxayna galayaan magaalada waqti habeen ah waxayna rabaan inay u tagaan doontooda. doontana waxaa ku sugaya wiil kale oo eeka la shaqeynaya. isla markii waxaa qabanaya wiil aad u da'yar. wiilkan ayaa wuxuu wato qori AK ah. qorigan hadduu xabad ka rido waxaa ogaanayo burcad fara badan oo meesha joogta oo ciidan ah. isla markii wiilkii ay iska sirayaan waxayna siinayaan lacag waxayna ka qaadanayaan baabuurka oo watay asiga. isla markii Santiago iyo tiimkiisa waxay u maleynayeen inay baxsadeen laakiin waxaa soo gaaraya tiim kale oo wataan qoryo waxayna u badnaayeen burcad ciyaal ah. isla markii burcadii ayaa bursanaysay. sidii u bursanaysay burcadii waxaa ku soo baxayso qoraxda. isla markiina waxay isku bedelaysaa maalin. wiilkii doonta watay oo badda ku sugayay ayaa isla markii korka arkayo. ciidankiina way iska xabadeynayaan waxayna raacayaan doontii. dhammaantood waxay badbaadsadeen naftooda waxayna imaan doonaan magaalo kale. magaalada markay imaadaan waxay wateen lacag aad u yar oo gaarayso 5 milyan. dhammaantoodna waxaa ku soo aardayso haddii loo qaybiyo lacag gaarayso 1 milyan iyo jajab. gabartii u qaybinaysay lacagta ayaa saas u sheegayso. isla markii waxay bilaabayaan inta Santiago ka ahayn inay lacagta u saxiixaan familka Captain Tom. dhammaantood 3 ka mid ah ayaa saxiixayso waxaana meesha lagu soo reebayaa Santiago. Santiago asigana halkiisa milyan ayuu ku darayaa meesha. sidaas familka Captain Tom waxaa loogu saxiixay lacag gaarayso 5 milyan. dhammaantood waxay u baxeen inay soo dhacaan lacag aad u fara badan laakiin filimkeena maanta wuxuu ku dhamaanayaa ayagoo dhammaantood ay wadanin waxa lacag ah. inta filimkan camal ku kulmeyno waxaan kaaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.